sida uu sharaxay gudoomiye Cabdiqani waxaa jira habraac la dejiyay oo ay tahay in la raaco taasoo guddiga doorashooyinka isku dhafka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay diyaariyeen kow waa in loo hoggaansamo awaamiirta ciidamada mas'uulka ka ah amniga ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ayaa ka shaqaynaya amniga awaamiirta ciidamada meel kasta oo ay joogaanna waa in loo hoggaansamaa waxaa mamnuuc ka ah goobta doorashada hub haba yaraatee wax huba oo la ogolaanayo in halkan ay yimaadaan gaar ahaan meesha wax lagu qabanayo doorashadu ma jirto waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah gudaha goobta doorashada wax lacag in lala yimaado waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah aaladaha elektroonikada sida telefoon computer iPad iyo waxyaabaha muuqaalka iyo lagu duubo codkaba in ay dadku la soo galaan taasoo wax loo qorsheeyay in la dhigo meelo guddigu uu qorsheeyey taasoo telefoonada la dhigi doono laakiin qalabka muuqaalka iyo codduubayaasha waxaa loo ogol yahay oo keliya dadka ku shaqada leh sida warbaahinta oo keliya waxaa sidoo kale gudaha teendhada ka reeban in laga sameeyo ololo doorasho haba yaraatee inta doorashadu marka ay bilaabato codayntu bilaabato kadib wax olole doorasho ah oo laga dhex samayn karo haba yaraatee teendhada gudaheeda ma jiraan sida guddigu go'aamiyey waxaa goobta doorashada iman kara dadka ay magacyadoodu yaallaan albaabada laga soo galo oo la caddeeyey albaabadu waa 3 albaabada laga soo galo dadka ay magacyadoodu yaallaan oo keliya ayaa waxay soo gaari karaan oo iman karaan goobta waxaanay wadanayaan oo looga baahan yahay aqoonsi sharci ah qofka aqoonsi inuu haystaa marka la yiraahdo magaciisa si loo hubiyo waa inuu aqoonsi haystaa waxaa sidoo kale guddiga doorashada u mahadcelinaya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay saameyn doonto maalinta weyn ee hadda gudoomiyuhu uu ka hadlayay waxaa laga codsanayaa dhammaan hay'adaha dawladda kuwa gaarka loo leeyahay iskuullada iyo maaragtay dhammaan in ay shaqaalahoodu fasaxaan ardaydu la fasaxo maadaama ay tahay maalin markii horeba munaasabad ahayd 15 May maantana ay ku soo beegantay maalintii doorashada waxaa laga codsanayaa marka in iyaguna ay shaqaalaha aan muhiimka u ahayn shaqaalaha muhiimka u ah mar walba meel walba kulley way keensanayaan laakiin shaqaalaha aan muhiimka ahayn in la fasaxo xildhibaanada iyo maaragtay dadka kale fasax u haysta imaashiyaha goobta doorashada waa inay baabuurtooda uga soo tagaan meelaha loo qorsheeyey oo aanay wax haba yaraatee gaari ah ama gaadiida oo ay la imaanayaan ma jirto marka waxaa loo diyaariyey gaadiid iyo basasaa loo diyaariyey kuwaasayna soo raacayaan cid baabuurtooda la imaanaysa ma jirto dhammaan xildhibaanada labada gole golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa lagu adkaynayaa in ay soo gaaraan teendhada ugu dambayn 8 subaxnimo waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in hawshu ay bilaabato 10 subaxnimo sidaa darteed guddiga waxa uu ku adkaynayaa dhammaan xildhibaanadu inay waqtiga ilaaliyaan si doorashadaasi waqti fiican loo qabto maadaama dadka Soomaaliyeed oo dhan indhahoodu ay halkan ku soo jeedaan ugu dambayntii waxaa loo mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed guud ahaan ciidamada noocyadooda kala duwan ee ka shaqaynaya amniga waxaa sidoo kale loo mahadcelinayaa ciidamada ADMIS ee taageeraya wabillahi tawfiiq